هوي waxaan ku weydiiyey ee hooyo maama iman bare may hooyo weli muumin sidii buu maqan sidii buu maqan yahay hooyana meer buu raacay saan buu meerestaa wana keen hooy wax kala wade markuu yimaado ugu yeelo qolkay uu kaalay ku ayo hooyana kugu yeelay mar ay hooyo ninkeena waan ka shakiyay wallaahi aad uga shakideed ku aragtay aad ku dareentay hooyo waxaan u malayn in kala balwada bartay ma dhici karto waxaas hooyo hadii dhacdo ka waran maxay noo xala xal aan ahayn in guriga noo dhaafa ma jirto war jira waxa ka weyn qisadan aan qoraya waxay midaysay laba qof oo adduunka ku kulmay hooyo si fiican ku fiirsada inaan kala balwada ka maqatiin dhihise ma balaamu maanta wuxuu noola yimaado aynu eeginaaye hooyo iska warrama waran fiicanna hore u soo soco waxaan ku weydiiyay xageed ku maqnayd ka timid hooyo wiil aan asxaabnahay ayuu hooyadii xanuunsanayso quraan kusoo qariyay quraan ma jireen quraankaan ku sugiya qolkooda tag hooyo maxaa dhacay oo ugu sugayaa isaga kuu sheegay warduu jigaaga qari hayo hooyo ma wax kuu sheega wax kastoo dhaco kugu sameeyo walaalkaa lisu ala sheegaysanaa hooyo lama hadlaba anigu way hadda baad u saa sameeyo tirsigiisa ka weynoow hayo hooyo marxaba hooyo maanta yaa kuu duceyn hadii kuma dhageysada sidee naar digata balaa ku duceysa wareerkiina wax walba isiijiye hooyo maanaa ku weeriye baa anigu hadaynan kar wad waa shurud wareeriseene wad weerasha iska xarkaa yaranastee hayo hooyo iska soo tasbiixoon ka tasbiixoon xiisa qabtaan talo maxaa igu hanjabayaa oo laygu wada sugayaa tan yar ayaa dabka sii shitay soo maaha isug anigaa yaqaana shaqadaade waxaan ku weydiiyey meeriskii ma joojis oo walaal maanaa meerastaba iskama deysin miyaa habsankan iyo habeen xilli socodkan iskama deysin miyaa walaal waa iska daynayahay balse maxaa dhacay waan kuma fahmay horta anigu hee walaal maxaa dhacay maxaa keenay faham waada waan bar horta mid ayaa jirta hee walaal waan horta walaasha uma haysatid inay kaa yar tahay cadow baad u haysataa waati kale waxaad mooddaa inaad xaafadda ka baxsan tahay adigu walaal waayo sidaa maxaad leedahay wax kale uma lihi
balse cuqdad iyo cadho iyo dhaqamo aan xaafadda inteeda kala lahayn ayaad leedahay. walaal dhaqamadeeda ayaa xun miya? haa weliba saayid. hooyo qadadi meeday? anu qadada ma madaxan ku sitaa oo jikada ka eegada. haye hooyo halkaasaan ka eeganay. hooyaninkan maad iga qabsanahaaye maxaa dhacay haddana? waa lay daba dhigay ilmaha yar kulaha qasab faraxal igu soo shub. hooyo waxaan ku weydiiyey inanta yare mayna ahayn inanta yareed guriga? maya way tahay inantii guriga. markaan ku idhaahdo farxalii soo shub sababta igu diyeysa waa maxay? waan soo yaro shubta maxay ku yeelaysaa intaasi? hooyo caguleey buu soo shubta dee. hooyo inanta yar wallaahi idiga baabiyey wixii loo diro ma loo qabataba. adi maxaa kala qabashada hawlkuu taala maataasi? horteeda kuma wada hadli karaysaan bahalay bini'aadamiinta. maxaa jira dee? maxaa dhacay hooyo? labadeer carafaad ma runtaad u sheegi kari weydey? waa waxa may dhicine anaa weelka xalay mudaysada dul istaagay. haye deetana ayuu af maxay igu yidhi ka kac weelka faraxal ii shub. walaal xaq miyuu leey inuu hawsha guriga ka kiciyo hawshiisa ii dirsado? walaal sidaa ma aha laakiin inanta yare shaqada guriga aad bay uga soo jeedaa. waxaa jeceshahay inay marna iska fadhido marna moobilka isticmaasho. walaal waa beentii waxaan iska fadhiyey male. walaal haddii aanay guriga sida inannimo uga shaqaynayn ma hooyaan dirsanaayoon ku nidhaa guriga nooga shaqee. ma dhammaysateen? haa walaal waa dhammaysanay. haddaba ta jirtaa waxay tahay labadiinana waxaad u baahan tihiin in laydi kala fogeeyo. waxaad u baahan tihiin inuu midkiinna guriga joogin sababtoo ah anigii hooyo waan ku dhex waarana. horta walaal waa khalad ma oglin inay hooyo nagu dhex weerarto. ma oglin baad ilaahay barre adigoo markii lagu arkaba dagaal iyo muran ku jira. wallaahi walaal waa khalad. waad fiicanta mar haddaad khaladkaaga garanaysood garanaysaba. hadda labadiinaba qolkay ugu kaalaya.